salaan kadib marka hore ilaahay subxaanaه watacaala baa mahad leh inoo suuro geliyey inaynu halkan isugu nimaadno ama hawshan inoo qabsoonto inoo suuro geliyey in qarankeenu mar walba horumar iyo tallaabo sii socota uu ku jiro marka ilaahay baynu u mahadnaqaynaa mar labaadka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ama bogaadinayaa komishanka qaranka xilka maanta nagu wareejinaya insha allah horena waa looga marakacay oo xusbiyo iyo dowladiba waa ka marakaceen annaguna maanta markhaataanu ka nahay inaa runtii commission shaqo wanaagsan soo qabtay oo soo shaqeeyey oo shahaadooyin ku qaatay aad tihiin waxaan is leeyahay soomaalidu waxay tidhaahaa ninkii ilaahay xoolo la maago dadkeedu siiya sidaa sheegteen in shaqaalahan dee ilaahay idiin keenayo wax badani ay sidaa idinba qirteen halkaa idinka yimaadeen anigoo ka wakiila commishanka cusub waxaanu ilaahay ka baryaynaa rajayneynaa ballanna qaadaynaa inta aanu dee bini aadan anagu ku nahay inaan tacabkiinu khasaarin aad soo wadeen in aanan khasaarayn in aa ku yidi doolootaan shaqada insha allah aanu qabanno ku faraxdaan inaanu haddii alla ka dhigo ka lixaad ilaahay ina daayo shahaadooyinkii ninkuwa ka badan ku qaadano oo usii gudbino marka waxaan leeyahay insha allah waxaanu runtii dee qarankuna oo ku mahadsanya noo soo xushay annana aanu usoo guntanay inaanu halkii kasii qaadno oo wanaag badan aanu soo kordhino oo aanay dub uga dhicin insha allah haddii alla ka dhigo waxaan kelmad odhanayaa shaqaalaha commissionka shaqaalaha commissionka waxaan leeyahay haddii alla ka dhigo dee ilaahay isu keenkeen amar ilaahay baynu isugu nimi waana wada shaqayn doonaa waxaanu insha allah rajayneynaa inaanu tartan la galno qoladan commissionkano shaqaaluhu beri dhow aa nacdaan qoladan aad ba waafanayseen aa nacdaano aanu dee tartan la gallo iyagu imika naga dhexeeya marka waxaan leeyahay aada iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay ammaanta iyo howlkarnimada iyo kalsoonida nalaga keensiiyey annaguna haddii alla ka dhigo sida aanu sheegnay waxay dee soomaalidu mahmaha ama ducada ugu weyn waxaa ka mid ah ilaahow aqoonna ha nagu cadaabin eexana ha nooga tegin waa arin weyn oo soomaalidu markii hore ku dhaqmi jirtay macnaheedu waxaa weeye dee wixii garasho aada garan weydo ilaahay dee kugu cadaabi maayo dembi malo dee garan weydi laakiin ilaahay waxaanu weydiisanayna inaanu eex nagaga tegin eex inaanu nagaga tegin oo aanan eexan oo aanaa idinka idin kala eexan oo aanaan qaranka u kala eexan oo aanaan xusbiyada iyo hawshaynu wadno u kala eexan sidii aanu ku dhaaranay iyo sidii aanu usoo maray inaanu dhexdhexaad iyo cadaalad hawsha ku wadno ay dhab nagu tahay